waxaa xalay magaalada Kismaayo ka dhaqan galay bandow uu maamulka Jubbaland ku soo rogay xilliyada habeenkii ah kaasi oo lagu micneeyay mid loogu hortagayo faafidda cudurka coronavirus. Guddiga ka hortagga cudurka coronavirus ee maamulka Jubbaland ayaa kulan uu shalay ku yeeshay magaalada Kismaayo waxaa lagu go'aamiyay in deegaanada maamulkaasi lagu soo rogo bandow xilliyada habeenkii ah kaasi oo bilaabanaya 6 maqribnimo kuna eg 6 aroornimo. taliyaha guud ee ciidamada Jubbaland General Aadan Maxamuud oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa amray laamaha ammaanka Jubbaland in si buuxda loo dhaqangeliyo bandow xalay dhaqangalkiisu bilaabanayay. dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu dhex arkayay ciidamada ammaanka Jubbaland oo gaaf wareegaya waxaana sidaasi xalay ku dhaqangalay bandowgii lagu soo rogay magaalada Kismaayo. Jubbaland ayaa sheegtay in 2 qof oo ku nool magaalada Kismaayo uu ku dhacay xanuunka coronavirus waxaana jira dad kale oo la sheegay in looga shakisan yahay inay qabaan cudurkaasi. 2 qof ee laga helay ayaa dhacaankooda loo soo qaaday isla markaana lagu baaray magaalada Muqdisho. dhinaca kale bandowga ayaa isla xalay ka dhaqan galay magaalooyin ay u horeyso Jowhar kadib amar ka soo baxay wasiirka amniga Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre. wasiirka warbaahinta kula hadlay magaalada Jowhar ayaa amray in bandow lagu soo rogo magaalada wixii ka dambeeyay salaadii cisho guud ahaan deegaanada maamulka Hirshabelle wuxuuna tallaabadaasi ku tilmaamay mid looga hortagayo faafitaanka xanuunka coronavirus oo dhawaan uu geeriyooday wasiir dowlad ka tirsan Hirshabelle oo uu ku soo ritay magaalada Jowhar. Jowhar ayaa laga soo sheegay in uu xalay bandowgaasi ka dhaqan galay.